بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meel kasta joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkii wararka ugu dambeeya caalamka oo dhacdooyinka kuwada ugu doorka roon iyo falaqayntoodaba aad ku maqashaan waa isniin 9 December sanadka 2024 intan uu barnaamijka ku jirno qodobada maqli doontaan waxa kamid ah howlgal ay mariga qasa ka fuliyeen dhaqaaqada iska caabinta oo lagu dilay askar Israa'iil ah tiro badan lagu dhaawacay sidoo howlgalka u dhacay ayaan macluumaad idinkaga haynaa xil wareejin ka dhacday Dimashq xogaga mucaaradka ee xukunka la wareegay ayaa maanta si rasmi ah xukuumadii nidaamkii Bashar al-Assad ee la riday xilka uga la wareegay xil wareejinta iyo sida u dhacday cid hogaamin doonta dawladda cusub ee kumeel gaarka noqonaysa Syria faahfaahin ayaad ka maqli doontaa Turkigana wuxuu u dirayaa Syria kooxo gurmad ah oo baara dadka ku xiran xabsiga ugu naxariista daran ee ku yaala Syria halkaas oo wali dad lagu laayahay xabsigan Syria gudaheed waxa looga yaqaanaa kawaankii dadka xabsigaasna war ayaad ka maqli doontaan soodintii ama xadkii u dhaxeeyay Syria iyo Turkigana waa la furay 100,000 oo Syriyaanana waxay ku laabanayaan dalkoodii iyagoo soo bandhigaya hamuumta iyo dareenka ay u qabaan inay dalkooda ku laabtaan wadamada Yurub oo Jarmalka Austria Faransiiska Ingiriiska ku jiraan waxay hakiyeen qaxootiga qaabilayeen ee Syriyaanka Mareykankana wuxuu sheegay in uu xiriir la leeyahay oo la xiriirayo dhammaan dhinacyada Syria oo ay ku jiraan xogaga hadda xukunka la wareegay tira maxaabiiso Falastiiniyiina waxa la siiyay cunno samaysan kadibna waa la kufsaday guddiga maxaabiista Falastiin ayaa soo bandhigay wasiirka arrimaha dibadda Israa'iilna wuxuu ku warramay inuu dhow yahay suurtagalnimada heshiis xabad joojin oo qasa laga gaaro qodobada iyo warar kale oo ka mid yihiin Ruushka oo salagiisa banaynaya dadweynaha Syria goobaha ay maamulaan kooxaha Kurdidana dadka Syriyaanka ayaa banaan baxay dhigaya waxayna rabaan in dawladda la wareegtay nidaamka lagu wareejiyo magaalooyinkaas warar kalena waad maqli doontaan intaynu guda galin waxaan ku codsanayaa inaad ku biirtaan bartan ama channelkan YouTube ee Imaan Jaamac si aad u heshaan wararka kooda ugu door karoon intayna qaybta ka ah ee si joogtada wararkii warbixinada uga socotana fadlan like saar oo u share garee saaxiibada mar kale soo dhawaada Israel waxay duqeymo ka geysatay marinka Gaza oo 50 qof ay ku dhinteen kuwa shahiiday waxa ku jira caruur iyo haween sidoo kalena tobanaan kale ayaa dhaawacantay weeraradaas oo ka dhacay waqooyiga Gaza balse tani waxay ka dambeysay kadib markii xogaga iska caabinta Falastiiniinta marinka Gaza gaar ahaan guutooyinka hubeysan ee Qassam ay howlgallo horumarsan ka fuliyeen waqooyiga marinka Gaza gaar ahaan aaga Jabaaliya howlgalku waxa mid gaar ah waxana lagu beegsaday tiro askarta Israa'iil ayaa qiratay oo soo bandhigtay in 3 askari laga dilay 12 kana laga dhaawacay kadib howlgal ay iska caabinta marinka Gaza ka fuliyeen xerada Jabaaliya ee waqooyiga marinka Gaza balse dhaqaaqada iska caabinta ayaa ku warramay qasaarinta ka badan in Israa'iil gaareen howlgalkan inuu ahaa mid horumarsan oo bartilmaameedyadoodii si sax ah loola gaaray iyadoo la adeegsanayo waxyaabaha qarxa toogasho iyo madfaca garabka laga riday ee Al-Yazin weerarkan wuxuu noqonayaa mid kamid ah weeraradii ugu horumarsanaa oo toddobaadkan ay ka geysanayaan marinka Gaza dhaqaaqada iska caabinta xilli Israa'iil ay dunidii ka aamusisay waxyaabaha ka socda Gaza sabab la xiriira dhacdooyinkiisa soo taraya ee Syria kuwaas oo fursad u siiyay inay duqeymo arxan darra ka geysato gudaha marinka Gaza magaalada Dimashq caasimadda Syria maanta waxa ka dhacday munaasabad gaar ah oo xilalka ay ku kala wareegayeen ra'iisul wasaarihii hore ee maamulkii la riday ee nidaamka Bashar al-Assad iyo ra'iisul wasaaraha cusub ee Syria la doonayo in waqtigan kumeel gaarka uu ka gudbiyo Syria kadib markii xoogagii mucaaradka ay la wareegeen xukunka dawladda cusub ay soo dhisi doonaa taas oo la sheegay in shaqadiisa noqon doonto ra'iisul wasaaraha cusub sidii uu hogaamin lahaa dawlad waqtigan kumeel gaarka ka saarta dadka Syria ra'iisul wasaarihii hore Syria Mohammed Ghazi al-Jalili ayaa u sheegay waraysi uu bixiyay telefishinka Al-Arabiya inuu aqbalay inuu xukunka wareejiyo oo uu ku wareejiyo dawladda badbaadada Syria ee fadhigeedu yahay Idlib tani waxay timid kadib markii ay sii daayeen muuqaal ay soo bandhigeen nidaamka cusub ee la wareegay Syria kaasoo muujinaya al-Jalili ra'iisul wasaarihii hore oo la kulmaya madaxa ururka Hayat Tahrir al-Sham oo hogaaminayay kacdoonkii xilka looga tuuray Bashar al-Assad oo loo yaqaan Ahmed al-Shara sidoo kalena ku magac dheer al-Jawlani iyo madaxa xukuumadda cusub Mohammed al-Bashir oo ah injineer hogaaminayay ama ra'iisul wasaaraha dawladda badbaadada ee fadhigeedu ahaa Idlib halkaas oo ay xukumaysay dawladda uu hogaaminayay Mohammed al-Bashir haddana al-Bashir waxa loo magacaabay inuu noqdo ra'iisul wasaaraha cusub ee kumeel gaarka ee Syria waxa laga sugayaa inuu soo dhiso dawlad wasiiro iyo hay'adaha kale ee dawladda si waqtigan kumeel gaarka uu uga saaro dalka Syria Turkiga wuxuu maanta albaabada u furay sohdinta maxadka u dhaxeeya Syria iyo Turkiga si qaxootiga Syriyaanka ay doonayaan halkaas inay ku laabtaan ay dib dalkooda ugu laabtaan muuqaal la soo bandhigay waxa laga arkay in dadka Syriyaanka aad u daneynayaan oo doonayaan si dhaqso leh in dhulkooda ay ku gaaraan kadib markii xukunkii laga riday nidaamkii soo barakiciyay ee Bashar al-Assad madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta isna shir jiraayad qabtay wuxuuna sheegay
in Turkigu furay albaabada xuduudda ee Yagladid uu la wadaago Syria si ay u maareeyaan si badbaado leh oo iskooda ah inay ugu laabtaan malaayiin qaxootiga Syriyaanka ah ee Turkigu martigeliyay. Ankara waxay diyaar u tahay inay taageerto dibdhiska dalka Syria si kasto ay u awoodo ayuu Erdogan. Wuxuu intaa ku daray in Turkigu aanu ogolaan doonin canaasir argagixiso cusub ay ka soo baxdo xuduudiisa. La taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka ee aqalka cad Jake Sullivan ayaa maanta Isniina sheegay in kooxaha waaweyn ee flagada Syria ku jiraan kuwa Mareykanku u aqoonsan yahay argagixisada inay ilaa hadda soo muujinayaan ficilo wanaagsan taasoo uu sheegay in gacan ka geysan karto inay iskaashi wanaagsan u Mareykanku la yeesho kadib markii xukunka ay ka rideen nidaamkii Bashar al-Assad. Waxaan la shaqayn doonaa wiiri dhammaan kooxaha Syria iyo sida uu madaxweyne Biden sheegay shalay kooxaha falagada ay ku jiraan kuwa la aqoonsan yahay kooxaha argagixisada waxay dhab ahaantii sheegayaan waxyaabo sax ah. Hadda su'aashu waxay tahay maxay sameyn doonaan si ay isku diyaariyaan inay Suuriya wanaagsan soo saaraan. Maamulka maxaabiista Falastiiniyiintana hadal ka soo baxay oo telefishinka Al Jazeera sii daaya waxaa lagu sheegay in maxaabiista Falastiiniyiinta ay ku xiran xabsiga loo yaqaan Atison ee ku yaala koonfurta daanta galbeed ee la haysto oo Falastiiniyiin badan ay ku xiran yihiin in Falastiiniyiinta la siiyo cunooyin sumaysan kadibna la kufsaday iyadoo loo kala soocin rag iyo dumarba. Tan waa dhacdo naxdin leh dadka reer Falastiiniina waxa ay mar walba inaga sugayaan ducada inaan Rabbi u weydiino xaaladan aan dunida hore u soo marin ay kula kulmayaan meel kasta oo kamid ah aagaga ay gaari karto Israel. Xilli xasuuq daran oo ka soconaya marinka Gaza daanta galbeedna waxaa lagu dhibaateynayaa dadka Falastiiniyiinta. Waxaan u rajeynaynaa inuu Eebbe dhibkaasi ka dulqaado. Iyadoo xaaladda saa u xumaanayso ficilada Israel ku kacaysa yihiin kuwa aan horay dunidan loogu arag aadana horena uusan u soo samayn ayaa haddana wasiirka arrimaha dibadda ee Israel ninka lagu magacaabo Godin Sar wuxuu ku warramay oo soo bandhigay in horumar weyn laga sameeyay wadahadaladii ku saabsanaa siideynta maxaabiista iyo xabadujinta Gaza. Inkastoo uu sheegay caqabado jiraan haddana wuxuu sheegay markan inay tahay waqti soo dhaweyn kara in heshiis la gaaro sida telefishinka Janaal 14 uu ku warramay. Turkigana wuxuu gudaha Syria u diray kooxo khibrad u leh baaritaanada iyo in ay furaan albaabada elektrooniga kadib markii xabsiga dadka Syria ay u yaqaanaan xabsiga kawaanka dadka ee lagu magacaabo Saydaniya oo ku yaala duleedka Dimashq oo ay maalintii labaad ee ka socoto baadigoobka dadka ku xiran halkaas oo xabsi muuqaalada laga soo bandhigay argagax ay leeyihiin oo lagu tilmaami karo inuu kamid ah xabsida ugu xun ee dunida ku yaala. Baaritaanada ayaa si joogto ah u soconaya dadka qaar ayaa looga cabsi qabaa inay goobo gaar ah oo inay ku xiran yihiin taasina waxay noqotay in loo baahday agab horumarsan iyo qaabab lagu furi karo albaabada elektrooniga qaar oo aan ilaa hadda la jibin iyo inay haddii jiraan goobo gaar ah oo dad lagu xiray oo aan la helin sidii loo baaday goob lahaa. Turkiga ayaa si dhaqso uga jawaabay waxaan loo diray kooxo tiknoolajiyad horumarsan wata oo furi kara goobaha aan la furi karin baaritaanadan ku habboon si xabsigaas looga soo badbaadiyo dadka meelaha qarsoon ku xiran ayaa la yiri. Ciidamada Ruushka ayaa faruujiyay saldhig ay ku lahaayeen magaalada Ainti al-Arab oo ku taala xadka Turkiga iyo saldhig ay ku lahaayeen garoonka diyaaradaha ee Qamishli. Askarta Ruushka ayaa goobta isaga baxay halkaas oo kamid ah aagaga ciidamada Turkigana ay ku sugan yihiin ku yaala xadka Turkiga iyo Syria. Isku dhacyo rabshado wata ayaa maanta ka dhacay bartamaha magaalada Deir az-Zur oo u dhaxeeya ciidamada dowladda cusub ee Syria iyo kooxda ururka SDF ee Kurdiyiinta u taageero Mareykanka. Tan waxay ka dambeysay kadib markii kooxdaasi rasaas ku furtay oo ay toogasho ku dishay qaar kamid ah dadka rayidka ee magaaladan oo banaanbaxyo waaweyn ka hordhigay goobaha ay kooxdani ku sugan tahay iyagoo ka dalbanaya inay ka baxaan magaalada kuna wareejiyaan dowladda cusub. Waxaa jira walaac weyn oo laga qabo in dadaalada iyo filashooyinka laga qabo isbedel ka dhaca Syria inay dhabarka ka jabiyaan kooxaha Kurdiyiinta ee Mareykanku taageero kuwaas oo ilaa hadda ku adkaysanaya inaysan ka baxin Deir az-Zur xilli dadweynaha ay maalintii labaad dhigayaan banaanbaxyo waaweyn oo kooxdan uga dalbanayaan in magaaladooda ka baxdo si ay ugu wareejiyaan dowladda cusub. Dhowr magaalo oo muhiim oo istiraatiiji ah oo ku yaala bariga ayaa lagu guuleystay oo dadku ay ku guuleysteen inay ka saaraan kooxdan SDF ee isku magacaawday ciidanka dimuqraadiga Syria oo Kurdiyiinta bariga gacanta ku haya. Khilaafka iyo walaaca ugu weyn ee laga cabsanayana waa in dowladda cusub iyo kooxdan Kurdiyiinta ay isku dhacyo dhex maraan taasoo kala dhantaali karta filashooyinka laga qabo dowladda cusub ee Syria. Markale haddaan idiin soo koobo wararkii ugu dambeysay Syria oo hadda diiradda la saarayana bangiga dhexe ayaa shaqaynaya ee magaalada Dimashq iyo bangiga dhexe guud ahaan Syria waxaana dib loo furay dhammaan goobihii ganacsiga iyo bangiyadii ganacsiga. Maxamed al-Bashir ayaa loo magacaabay inuu soo dhiso dowlad ku meel gaar ah wuxuuna noqonayaa ra'iisul wasaaraha cusub. Jolani ayaana la kulmay al-Bashir oo injineer ah iyo ra'iisul wasaaraha xilka laga wareejiyay ee nidaamkii Bashar al-Assad. Gegada diyaaradaha Xalabna dib ayuu u bilaabi doontaa baa la yiri dowladnimada gudaha. Shaqaalaha gobolka ee ka shaqeynaya dhammaan xarumaha adeegga bulshada iyo dowladana waxa lagu amray inay dib shaqadooda ugu laabtaan.
mas-uuliyiinta dowladda waxay sheegeen in haweenku aysan jirin cid cadaadin karta oo in si xor ah u noolaan karaan una xiran karaan waxa ay doonayaan kadib markii ay soo baxeen walaac laga qabay in dowladda cusub ay amaro xoog leh kusoo rogto haweenka. waxaa la mamnuucay in dhibaatooyin loo geysto saxafiyiinta, waxaana ay dowladda cusub ku dhawaaqday in ay muhiim tahay in la fuliyo xuquuqda hadalka iyo xorriyadda hadalka, mana jirtaa layidhi qof la caburinayo. cafis guud ayay dowladda cusub u fadisay dhammaan askarta Siiriyaanka, waxaana la sheegay in dib-u-habeyn lagu samayn doono kadibna adeegoodii lagu celin doono. hogaamiyaasha diinta iyo dadka caanka ah ee ku sugan magaalada uu ku dhashay Asad ee Qardaha oo ah dhulka Calaawiyiinta ayaa waxay ku heshiiyeen inay aqbaleen in booliiska ay maamulaan dowladda cusub ee hogaaminayso kooxda Hayat Tahrir al-Sham in loo dhiibay magaaladaas oo ammaankeeda sugto. balse warqadan ay saxiixeen ayaa waxa ay muujinaysaa inaysan cid qoyska Asad ka tirsan aysan saxiixin, balse dadkii dhaqanka iyo dadka ugu caansan magaaladaas waxay ogolaadeen sidoo kale in meesha ay ka saaraan dhammaan calaamadaha iyo talooyinka lagu taageerayay Asad. ugu dambeyntiina ururka Xamaas ayaa soo dhaweeyay isbedelka ka dhacay Syria. war-saxaafadda ururka soo saaray waxaa lagu sheegay Xamaas waxay ugu hambalyeynaysaa dadka walaalaha ee Syria guusha ay ka gaareen hamigooda xorriyadda iyo cadaaladda. waxaan ugu baaqaynaa baa layidhi dhammaan qaybaha kala duwan ee shacabka Syria inay midaayaan safkooda, horumariyaan wadajirkooda qaran, meeshana ka saaraan dhibaatooyinkii hore ee ula kulmeen. annaga dhaqaaqa Xamaas iyo shacabkeena Falastiin waxaan si adag u garab taaganahay shacabweynaha Syria. waxaan xaqiijinaynaa baa layidhi midnimada Syria iyo wadajirka dhuleed iyo ixtiraamka dadka Syria rabitaankooda, madax banaanidooda iyo doorashooyinka siyaasadeed. intuu socday ololihii ay wadeen dowladda cusub ee hadda xukunka la wareegtay si Bashar al-Assad meesha looga saaro, qaar ka mid ah saraakiisha ama hoggaanka Xamaas ayaa laga maqlayay inay diyaar u yihiin garab taagan yihiin kacdoonka ka socda. Asad ayaana ku xargixisa oo aqoonsanaa Xamaas, wuxuuna ka saaray sanadkii 2011 xafiisyadooda ay ku lahaayeen Dimashq. barnaamijkii wararkii ugu dambeeyay ayaa intaasi noogu eegoon diradda ku saarinay waxyaabihii ugu dambeeyay ka dhacay Mareykanka, Gaza iyo dhulka Falastiin iyo Syria oo hadda diiradda la saarayo. intaynu mar kale ku kulmayno haddii eebidmo saacadaha soo xigay iyo dhacdooyinka kuwooda ugu dambeeyay oo mar walba aad bogan ama kanaalkan aad ka heli doontidna waxaan kaga tagayaa sidaas iyo ammaanaad lah, nabad qab iyo caafimaad qab.